qaybteena labaad ee barnaamijka aynu uga waramayno boqortooyada Kuush. Anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinaya. qaybteena labaad ee maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa soo ifbixi boqortooyada Kuush iyo gobolka Nubia. Nubia oo ah gobol laga yaabo inuu ka daxsoon yahay Masar ayaa ka cakiran mala awaalka adduunka oo dhan sababtoo ah waa la fahmi waayay. inkasta oo ay Masar ka tirsan tahay waqtiyada qaar ee taariikhda, haddana weligeed ma ahayn qayb muhiim ah oo kamid ah boqortooyadii hore. dhab ahaantii waxay ahayd meeshii ay ka dhasheen xadaarada kala duwan. natiijooyinka casriga ah xitaa waxay muujinayeen inay ahayd meeshii ay ku dhasheen fircoonkii ugu horeeyay ee Masar lafteeda maamuli jiray. mid kamid ah boqortooyooyinkii ugu caansanaa Nubia ma aha mid kale oo aan ahayn boqortooyada Kuush. si aan u raacno asalka boqortooyada Kuush waa inaan aragnaa waxa ku hoos jira ciidda Nubia. maxaa jiray ka hor inta aysan bilaabin faafinta saameynteeda gobolka ama waxa ay ahayd mid kale? gobolka Nubia waxa uu ku yaal koonfurta Masar oo uu weeliyo qulqulka webiga Niil. waxa ay qabsatay dhammaan dooxaha Niilka ee koonfurta magaalada Masar ee Aswan ilaa caasimadda Suudaan ee Khartoum. waxay ahayd Aswan markii ugu horeysay ee marin gacmeedka webiga weyn, waxaana loo yaqaanay biyo-dhaceenkii ugu horeeyay ee webiga Niil. gobolka Nubia ayaa sidoo kale loo yaqaanay biyo-dhaceenadii webiga Niil maadaama ay lahaan jireen 6 godood ama 6 marino oo aanay wax doonahay ku socon karin. Nubia lafteedu waxa ay u qaybsantay 3 qaybood kuwaasi oo kala ah qaybta sare, dhexe iyo hoose. Nubia waxa ay ku dhex jirtay xuduudaha Masarta maanta, waxa ayna qabsatay dhulalka bilowga ah ilaa marinka biyo-dhaca labaad. Nubia waxa ay u dhaxaysaa marinka biyo-dhaca labaad iyo saddexaad, halka Nubiada sare ay ku faaftay dhammaan dhulalka koonfureed ee laga soo bilaabo biyo-dhaca saddexaad. magaca Nubia lama isticmaalin intii lagu guda jiray boqortooyadii hore ee Masar, waa taariikh dambe. waxayna timid markii boqortooyada Mirotic ay dhacday qiyaastii qarnigii 4aad ee Hijriyada. Masaaridu waxa ay gobolkani ugu yeedhi jireen Kuush, halka Giriiguna ay u yaqaaniin Ethiopia ama Ethiopia. si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xasuusto in Giriiga ay magacani u isticmaali jireen dhowr gobol oo kamid ah qaaradda Afrika, micnihiisa oo ah dhulkii wajiga gubay, oo aan si qarsoodi loo soo jeedin in aagaasi ay qabsadeen dad madow iyo cadaan toona aanu jirin ee ah midabka baroonka ama qaxwada. magaca Nubia waxa uu ka yimid dadkii reer guuraaga ahaa ee Noba ee halkaasi ku noolaa boqortooyadii Mirotic kadib qiyaastii qarnigii 4aad ee Hijriyada. markii Masar taariikhda hore u soo baxday awood siyaasadeed ku dhawaad 3500 oo sano ee taariikhda Hijriyada, hal ku dhig ahaa bixi ama qaado dhowr qarni, sida culimadu aysan ku heshiin karin taariikhda saxda ahi. ilbaxnimadu ayaa horay uga jirtay dhulka Nubia. waxaa lagu calaamadeeyay inay yihiin dhaqanka kooxda A ama kooxda A, waxayna horay u horumariyeen ganacsi ay la lahaayeen wixii markaasi Masriyiinta ahaa. qiyaastii 3100 sanadood ee Hijriyada, boqortooyadii koowaad ee Masar waxa ay bilowday waa cusub, iyaga oo midaynaya boqortooyooyinkii Masar, kuwii hoose iyo kuwii saraba. waxay u muuqataa in waqtigani Nubia ay ahayd qayb ka mid ah boqortooyadii cusbeed ee la midowday kuwii kale ee Masar. iyo qaar ka mid ah culimada xitaa waxa ay soo jeediyeen dhaqanka kooxda aada ee saameeyay midaynta dooxada Niil. dadka degan Nubia xilliga Masartii hore waxay ahaayeen isku dhafka qabiilooyinka hore ee Suudaanta, gobolada saxaraha ka hooseeya iyo xitaa gobolada galbeedka. isku dhafkani ayaa soo saaray dhaqan gaar ah kaas oo dhalin doona waxa loo yaqaan dhaqanka Masar iyo Nubia. si kastaba ha ahaatee, dadka A group ama kooxaha A-da lagu tiriyo ayaa laga waayay gobolka qiyaastii qarnigii 18aad.
sababtoo ah waxa ay u muuqataa in 2500 oo sannadood in Nubia ay ahayd. Suurtagalnimada kale ayaa ah in ay qabsadeen dhaqan aad uga hooseeya oo lagu magacaabo Ba Group ama kooxaha Ba'da oo aan wax raad ah kaga tagin diiwaanka taariikhda. Si kastaba ha ahaatee, soo bixitaanka kooxda A Group ama C Group ayaa bilowday. Natiijooyinka qadiimiga ah waxay cadeeyeen inay xiriir la leeyihiin kooxda A Group. waxaa la rumaysan yahay in kooxda A ay ahaayeen faracii kooxda A, kuwaasi oo ugu dambeyntiina dib ugu soo laabtay gobolka. inkasta oo ay sidoo kale suurtagal tahay in kooxda A aysan xitaa ka tagin, laakiin dhaqanka gobolka Nubia waxa uu soo maray xilli dib u soo nooleyn ah oo ay dib ugu soo laabteen gobolka. culimadu waxa ay u yaqaanaan dhaqanka Kerma maadaama xudunta ilbaxnimadoodu ay ahayd magaalada caasimadda u ah boqortooyada ee Kerma. qaybta labaad ee barnaamijkani aan uga waramayno taariikhda boqortooyada Kuush halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. anigoo Cabdiqaadir Maxamed ayaa soo saaray idinlana socodsiinayay. maalin waliba halkan ayaad kala socon doontaa. rukumo janalka lana wadaag saaxiibadaada. mahadsanid.